waxaynu si kooban uga hadlaynaa xaaladda dalka uu galay oo dhowr qodob ah. Abuu Axmed Geedi oo ka hadlaya dawladnimada wuxuu yiri dawladnimadu waa qof, dawladnimadu waa daabad ruuxi dihnigeeda koraa ugu adeega danyarta. waxaad ka warqabtaan saddexdii cisho ugu dambeeyay xaaladda nololeed ama maciishadeed ee muwaadiniinta Soomaaliland inay wax weyn iska bedeleen. مسؤولية ذلك عدة هي سواء حكومة كلمية عدة للربا إلى تشانجو يسا سحركا ومعيشة مواطنين إلى لساعة وحكومة ومدحوينها كي هي جرودان كمصبيح عقدي. وحموقتها إن سحر كي معيشته أما وحي أفكر المرينة يبرتي ستاجين لعقتي دولار كنا هو وصل عليه. taasi waxay saameyn ku yeelatay marka maciishada laga yimaado muwaadiniintu adeegyadii kale ee ay haysteen ee ahayd gaadiidkii dadweynaha in qofka muwaadinka dakhligiisu yar yahay ee gaari bareefada aan kireysan karin ee baska 2,000 raacay inuu baska 5,000 ku noqdo inay saameyso shidaalkii inay dugsiyadii bareefadka ahaa ee la dhiganaya ay saameyso inay saameyso biyihii booyaduhu dhaaminayeen. marka dawladnimadeena adeega asaasiga ee bulshada haday biyo tahay bilaasha lagama helo, haday wadooyin tahay lagama helo, haday gawaadhi public transportation iska waxaan la yiraahdaa dawladuhu dunida ay kafaalo qaataan muwaadiniinta oo sameeyaan iyagina lagama helo. hintaaba shicibka ayaa iskood abaabul ku wada. xukuumadeenu waxay ku mudnayd oo mudnaan ay ku lahayd inay maamulka dalka ku ilaaliso tan iyo kuwii ka horeeyay. waxa cadaatay 40 bariye u dambeeyay iyadoo bil khayr qabaan ku jirnaa shuruud xurumkeen ku jirno oo bishii Ramadaan soo galayso dhinacii muwaadiniinta la daryeeli lahaa ee hoos loo dhigi lahaa maciishadooda iyo adeegooda bulshada asaasiga ah inay meesha wixii ka baxayaan. waxa muuqata mas'uuliyad darro weyn oo ay ku eedeysan tahay wasaaradda maaliyadda oo ay ku eedeysan tahay wasaaradda ganacsiga oo ay ku eedeysan yihiin ganacsatada dalka. muwaadiniinta in loo turo oo uu hadalno oo ka danyartaa iyo ka taajirkaaba aanu dantooda ummadda maqashino oo xukuumadda markasta ku saxno waa waajibka dastuuriga ee xisbi ahaan saar. kow waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba mas'uuliyaddu waa shay aad u culus. waxaad u soo saciyeysay maanta xilka ummadda aad ugu hayso maantana ilaahay waa kugu arkaya maalka qiyaamahana ilaahay waa kugu weydiinaya. ummaddan maanta adiga ka mas'uula adiga u madaxweyne ah wixii taariikh sanad qabataana way ku suntanta wixii aad khaladaan way ku suntanta. ilaahaga mas'uuliyadda madaxweyne uga yaabo kow cidaad xilka ugu dhiibtay ummadan ee mas'uulka ka ah maciishadu hoos ummadda ha u eegto. laba adiguna mudnaan iska saar maadaama oo bilo khayr qaba aynu gelayno oo Ramadaan ah in maciishadu barteedii barka hoos ay tagto. aqla wa sharcan wax la aqbali karaya maaha muwaadin aan biyo dawladda ku qabin oo aan gaadiid ku qabin oo wada ku qabin in haddana hungurigiisii iyo wuxuu cunayay ay soo gasho. waxaad ka warqabteen 14 bisha in gudida arrimaha bulshada golaha guurtidu warbixin aad u dhiila badan ay golaha guurtiga siiyeen. waxay ka hadleen cusbitaalkii walaayah Hargeysa waxay sheegeen 432,000 oo dollar oo deyna inuu cusbitaalku galay. cusbitaalka weyn ee Hargeysa dhowr iyo 50 baa la dhisay 2019 oo marna dawladihii kulmiye kala dambeeyay waxay awoodi kari waayeen inay wixii Ingiriisku 3 dhisay inay dadku u dhisaan. adeegii dawliga ahaa ee lagu hayay haddii ay tahay warbixinta marka gudida la dhageysanayay wax dhiila laba umul aroorka ka dhacaya biyo la'aanta iyo layd la'aanta cusbitaalka jirta iyo adeeg xumada. haddana cusbitaalkii dawladda oo aan kira ahayn oo ka maskaynta la ku yaala oo u adeegaya 1 milyan and half Hargeysa degan in la yiraahdo deyn baa lagu yeeshayo cusbitaalku uu dumaya. madaxtooyada golaha wasiiradu ku shiraanan 2 tallaabo ay 20 tallaabo ay u jirto waxay cadeynaysaa iyaduna
إن المسؤولية درك على يدر يلا أنعف ما ضد ضل يدد بأنج عاصمة مركز عصبة الجيل ساي مدحونا وحنا نقول باقنا مر لبعض ومضى لما ندو ضعاف ما الدولة ما ذيك وصارنت هذا أنا حلك خالد قدم كتدبيرات هذا الدستور كله وحدقيا حكومات كستو تنادى ذلك قبلتين المسؤول كتاع عافمات كمواطنين عصبة الكاي عاصمة دولة بعتن طلابة مدحتوية الشركة جولا وزيرة كولا قشاوية وزيرة دبا دو جرتاع ووزيرة هذا قوة حنوصدا إلى يسكو آمنين إن ما أنت هدنا اللي إلى هذا أفر بقول يلا بيصدم كل $1 دين بكتير عصبة الجيل دولته وودمية وأداء سيلاري بيبوا بابا وباكله جامين تالا كتعب مدحويني إلهي مسؤولية وجبقة وتوكو صارن ضد كني هذا معيشة دي كعوضان وعافمات كعوضان وهيدا هاي الدولة والشقيم وهي وحيجا دعي كريوات قرار سايا منطقة كسر إن وحنو أقبل إننا ما هك حسبي أهان إن مواطنين الصومال الآن عافمات كل صداو ضيام معيشة دو هيساو ضيامته كون برتنو فردنانو هيلين إنه حد لينانا وضن يرتدلك هي كشقين تدين تجود إن واحد كور قبطان وصدحات دورشوينكي وين هذا الهيئي ضلك معلومها عن حقوق وحي وحوض عضلات الحسبية دورش دنيا الصومالي اللي ورشد ما هيسو على بايكسو بحانه وحي كيبسو اعتراف بين الدنيا كرادنا الدنيا أنا واحد اعتراف كرادنا هاي نتصنع إنه الدل ديمقراطي ودورش هيك قبل صوتها دورش هذا سنة وحي دنيا كيبسا يدق بعياشة إن جتها جرا إن الدل ديمقراطي جنا waxa muuqateyntii imika muddada labadan sano xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Xasan ay la geliso in rajadii doorashada laga qabayay ay meesha ka sii baxayso oo nidaam kale oo dimuqraadiga ah dalku galay position kayga iyo goobtan uu ka taaganahay doorashada inuu dalku ka dhaco wadan ahaan diyaar baan u nahay waxaanu istaagnay anagu ka xisbi ahaan dalka doorashadii 2007 ka dhacday inaanu dariiqa ka marno madaxtinimadii madaxweynenimadii milatarigii iyo maamulkiiba in Muuse Biixi lagu wareejiyo oo madaxweyne ku noqdo waxaan isku haynaa haddii inta aanu kaaga hadhnay xisbigii wadani aanu nahay si dalka doorasho uga dhacdo oo baarlamaanka 20 sano fadhiya meesha u dhaafaan oo dimuqraadiyaddii Soomaaliland dunida ka iibinaysay mar labaad loo arko dadka inoo xaq sooraya ee garsoorka inoo noqonayo komishiinkiya aanu qaybsano تينا مدحونا موسى بيحي حسبي سيء حكومتي سويدي دوني ده يدق بحياش نوجي ضلك يدق كنا تاها وقعدا إن أنا دولة دني دورشة إن الديار واحد موقف كيجا دورشة دورا اسمه واحد تان وحنكون ورنا يا واحد كور قبطان ضد مواديننا بعملي وحكى لي مدحتويهم أي شيكتان وراقة شرعية ay ku sheegteen inay iyagu leeyihiin oo galbeedka magaalada Hargeysa laga soo dhowr mar hore oo qaaday arinta madaxtooyada in guri la dhiso in hospitalka Hargeysa la dhisaa anaga nooga qiimo badan in taariikh fiican madaxweynuhu ka tago oo intuu xilka hayo wax lagu xasuusto oo xiska bini'aadanka gala ay dhacaan annaga jecel madaxweyne waxaan ku leeyahay sooyaalkaaga taariikheed intaana jagada madaxweynaha iman suuqa hore waxa ugu jirtay inaad beeradada isku haysateen 20 sanadood adigoo 2 sano madaxweynaha mar labaad waxa la leeyahay beer bay hore isku haystaan haybada iyo sharafta dawladnimo uma qurux badna حسانات قرنك كم تلسى 4 مليون Somaliland أتكم تشوفها قروح بدنا أرنتها مدحونه هو سواك وليلة دمر دنبيين الصبح وهذه القرنك قروحنا سو كونسس يو تنازل لن كاجينا كتم عضو والقروح بدنت سو قرن كان وطها بقرة ومدحت النمط هذا يو هو جامين تيد يهيبدد وعو صوب حضو وحيابها السوق مركز دفع حد هيبدد قرن ما كوه inaad ka dheeraato talada xisbaan walo ku soo jeedinayna si roob aynu helno
si naxariis ilaahay noogu daado si dalku noogu qurux bato waxa laga rabaa waa cadaalad waxa laga rabaa waa hogaamin wanaagsan waxa laga rabaa inaad dal iyo dadba hoos u eegto waxaan ku ururnaa oon ku soo gabagabaynaynaa oo baaq bartaan aan uga dirna qolada ganacsatada waxaan leenahay dawladdu waxay idinka qabataa haddeedaan hayn cid dadkan idinka qabataa haddeedaan hayn mas-uuliyadda ilaahayna uga boqa oo maalinta qiyaamaha ka boqa ilaahayna aad la kulmaysaan oo masaakiintaa soo oodatay reer Soomaaliland maciishada u jabiyay